Senator Samsom Dahir ayaa sheegtay in hindisay sharciyeedka anti-money laundering uu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo ka hor inta aan la ansixin. sharciga ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo markasta uu sharcigan isticmaalayay sharciga anti-money laundering la dhahayo uu ahaa oo 2016 baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyay sharcigaas markaan soo aqriyo dul istaagana waxa moodaa inay aad isku maajgareynayaan wax ka bedelka ay guddigu ku soo sameeyeen waa mahadsan yihiin laakiin waxa moodaa in loo baahan yahay wax ka bedelkaas u dhaqan galo in sharcigan ruuxiisa anti-money laundering amendment lagu sameeyo oo maaragtay maadaama oo isku shaqana ay qabanayaan ay aad isugu dhow yihiin meelaha ay iska khilaafayaan waxa loo baahan yahay in laga saxo sharcigan for example hadda guddiga oo kaleeto waxa ku qoran 8 qofood 8daas qofood hadda sharciga hadda hor yaalana markii laga shaqeeyay 2 qofood oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda aan ku soo darnay oo aniga ruuxayga aan u arkay inay sax tahay laakiin haddana in labadaas wasiir lagu soo daro oo 10 xubnaha laga dhigo waxay u baahan tahay sharciga anti-money laundering 8 qof oo ku dhigan horta in amendment lagu soo sameeyo oo la iska daba keena labada sharci sidaas darteed marka waxaan aan qabaa hadeertaan markaan soo aqriyay sharcigii oo reference-igu ahaa sharcigan hadda maaliyadda cayiman oo laga shaqeynayo waxa aad u wanaagsan in sharcigan maaragtay waqti fiican oo kale loo helo oo anti-money laundering la keeno labada sharci isla socotan amendment lagu wada sameeyo la iswaafajiyo hadii kale aad isku khilaafayaan sharciga hore khilaafayana waa laga fiican yahay marka waxaan qabaa sharciga inaan sidiisa maanta aan ku ansixino kadibna annaga baarlamaanka awoodiisa TOR-keena waxa kamid ah in shuruucda wadanka oo leeyahay tirada badan anytime amendment lagu sameey karo ayadan hadhowti aan kala talino wasiirka oo dhahnaniyo sharcigan iyo sharciga labada sharci isku soo qaado hal mar maaragtay hal wada saxo oo amendment lagu wada sameeyo aad u mahadsantiin